madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha dawladda federaalka iyo kumanaan ka mid ah shacabka caasimadda Muqdisho salaada ciidda Carafa kula oogay masjidka Cali Jimcaale ee degmada Waaberi. Allahu akbar. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta caalamka ugu hambalyeeyay maalinta koowaad ee ciidda Carafo ayaa kula dardaarmay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ilaaliyaan nabadda, midnimada iyo dawladnimadooda ayna garab istaagaan walaalahooda danyarta ah iyo kuwa wajahaya dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha. ciid mubaarak. ilaahay naga aqbalo acmaasha suuban ee salaada aan dukanay sujuudda iyo rabbi tuuga iyo ducada iyo takbiirta intaba dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan iskaalmeeyaan walaalaha ay tabartoodu gaaban tahayna maalinta farxadda leh maxaan ku iraahdaa udxiyada la bixinayo in ay deriska iyo dadka danyarta intaba si gaar ah loogu qasdo in sadaqada la gaarsiiyo in maxaan ku iraahdaa loo tago caruurtooda iyo ayagaba in laga farxiyo sax maaha ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay ilmahaagu ay faraxsan yihiin oo aad wada ciidaysaan deriskaaguna uu dabkoodu dansan yahay ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin sax ma aha. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhanka kale ku bogaadiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhaqaalahooda geliyay dhismaha masjidka weyn ee sida casriga ah loo dhisay ee Cali Jimcaale oo ah masjid ay markiiba ku tukan karaan kumanaan muslimiin ah. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Allah barakeeyo waxa ay haystaan Allah u kordhiyo intii masaajidkan dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba Allah barakeeyo niyadii sameed ee ay ku dhiseen ay ku soo fikireen ee ay xoolahooda ugu horeen ilaahay bedelkeeda khayr qaba Allah siiyo. masaajidkan tabarucaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah walaalo ah ayaa dhisay khayr badan Allah ka siiyo. dhulkana dawladda bixisay masaajidkana dadka dhisay. diintu sidaas dawlad iyo dadba mas'uuliyad ay nooga wada saaran tahay. caasimadda Muqdisho iyo gobolada jamhuuriyadda ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidda Carafo oo ah ciidda labaad ee ay u dabaaldegaan dadka muslimiinta iyaga oo fulinaya amarka Eebe.